kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan idin wadaago wararkii ugu dambeeyay natiijadii ka dhalatay kadib shirkii fashilka ahaa ama shirkii fashil ku soo dhamaaday ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed labaduba waxay qaadeen tallaabooyin iska soo horjeeda oo degdeg ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha hadda talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidii aad ogeedeen bashir waxay ku yeesheen magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya shirkaas oo ka dhashay dadaalo ay sameeyeen qaar ka mid ah waxgaradka iyo duqowda beesha mudulood lana doonayo in lagu xalliyo tabashooyinka iyo khilaaf ka dhex jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed inkastoo kulanka labadooduba kaliya oo dhex maray oo aanay goobjoog ahayn odayaashii soo abaabulay haddana waxa la xaqiijiyay inuu fashil ku soo dhamaaday kulankaas oo ay dhinacyadu isku fahmi waayeen qaar ka mid ah qodobadii miiska u saarnaa warqoraal oo soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu ku sheegay in ay dhammaanba isku fahmi waayeen hal qodob oo ka mid ah waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana jira tallaabooyin ay labada dhinacba ay qaadeen qoraalka Sheekh Shariif inta aan idin akhrin haddaba muxuu Xasan Sheekh sameeyay Shariifna muxuu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu kulanka natiijo la'aan ku soo dhamaaday isla markaana isfahamuhu ay ku soo kala tageen isaga iyo saaxiibkiisii siyaasadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu si degdeg ugu soo ambabaxay magaalada Muqdisho ama gudaha dalka imaanshaha madaxweyne Xasan Sheekh Muqdisho waxa uu ku soo beegmay saacado un kadib markii isaga Sheekh Shariif isfaham waayeen waxaana halkaas laga fahmay ama laga dhadhansan karay inuu Xasan Sheekh uu diidanaa in mar kale dib la isugu laabto sababtoo ah markii horeba madaxweynaha isaga ayaa odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintii kulanka goobjooga ahaa ka hor intuusan furmin ka codsaday in labadooda loo madax banneeyo inay shiraan haddii isfaham waayaanna ay dib ugu soo laabtaan dhaqanka kuma laabanin ee si degdeg ayuu Muqdisho ku soo aaday waddanka ayuuna hadda ku sugan yahay tallaabadii ugu horreysay oo qaaday Xasan Sheekh ayaa taasi ahayd sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhankiisa isagana wuxuu qaaday tallaabo kale wuxuu soo saaray war saxaafadeed wuxuuna ku sheegay in dhammaan qodobadii ay isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh ka wada hadleen ay isku fahmi waayeen waana arrimaha dastuurka siyaasadda iyo sidoo kale midnimada waddanka qoraalka Sheekh Shariif ee war saxaafadeedka ah ayaa u dhignaa sida ay la socdaan shacabka Soomaaliyeed waxaa jiray kulan ka dhacay magaalada Nairobi oo ay ujeedadiisu ahayd sidii xal looga gaari lahaa arrimaha masiiriga ah ee dalka kaas oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka marka hore waxaa hadda aan la soo koobi karin u jeedinayaa madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii sida hagar la'aanta ah ugu istaagay isku soo dhaweynta aragtiyada kala duwan waxaana leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo aniga odayaashu waxay noo daayeen wada hadalka iyo xalinta arrimaha jira in aan isla meel dhigno sida uu madaxweynaha codsaday aniguna kulankaas waxaan ku tagay niyad wanaag iyo in xal laga gaaro arrimaha lagu kala aragti duwan yahay kuwaas oo kala ah saddexda arrimood ee hoos ku xusan kow arrimaha dastuurka laba arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka dalka saddex khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dood dheer kadib xal waan ka gaari weynay dhammaan qodobadii aan ka doodnay waxaan rumaysanahay mabda ah in khilaafka siyaasadda lagu xalliyo wada hadal iyo isqancin marxaladda adag ee maanta dalka marayo ay tahay laga maarmaan ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed mar kale waxaan u mahad celinayaa waxgaradka iyo ganacsatadii dadaalka iyo dhaqaalahaba ku bixiyay in xal laga gaaro khilaafka jira ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhinaca madaxtooyada qaranka wali ma jiro war oo ka soo baxay oo ku saabsan shirkii natiijo la'aanta ku soo dhamaaday ee ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya haddii wixii ka dambeeya waxaa la aaminsan yahay in tallaabooyin kale ay qaadi karaan labada madaxweyne sababtoo ah khilaafkooda ayaa sii xoogeystay tanina waxay ahayd rajada ugu dambeysa ee laga qabay in ay isku fahmi karaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud wixii warar ay ku soo kordhaa natiijooyinkii xumaa ama natiijooyinkii guuldarrada ahaa ee uu ku soo dhamaaday shirkii Nairobi ka dhacay waxaa idin kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah